beryaha ka mid ah ayaa waxaa jiri jiray naag la dhihi jiray naag dhagdheer. Naagtaasi waxa ay joogtay meel baadiye ah, aysan cidna joogin, iyada iyo gabadheeda iyo odaygii qaba. Maalin maalmaha ka mid ah ayay gabadhii waxay ku tiri, hooyo, waxaan noo doonayaa cunto guriga noo sii joog. Markaas ayay dhagdheeri jafadeedii horay u soo qaadatay, iyada oo rabta wax ay soo qalato. Markay socotay ayay masaafo dheer markay sii socotay ayay waxay la kulantay odaygeedii oo joogay asagana meel durduur ah. Markaas ayay waxay ku tiri, maxaad haysaa? Markaas wuxuu yidhi, waxba ma hayee, halkan ayaa joogay. Markaas ayay waxay ku tiri, qoryo ayaan meelahan ka doonayay, ileen odaygu ma oga inay iyadu qalato tahay. Markaas ayay dhagdheeri baadiyaheeda aaday. Sida ay dhagdheeri u baaraysay wax ay cunto ayay weyday. Markaas ayay gabadheedii ku soo laabatay, waxay ku tiri, hooyo, dabka noo shid oo wax aad cuntis karso. Habeenkii markii la gaaray baa waxa uu imaaday islaan martida baa soo socotay. Markaas ayay islaantii haddii gabadhii u imaatay waxay ku tiraahday, biyo i sii. Biyihii markay siisay, ileen dhagdheeri way hurdaa markaas ayay gabadhii waxay ku tiri, bartaas gal, hooyadayna waa qalatee, hadday kaa shakido bartaas ka bax. Markaas ayay dhagdheeri wax sharqan maqashay, dhagteedii bay kor u taagtay. Markaas ayay gabadheedii waxay ku tiri, hooyo yaa jooga. Markaa cidnay ku tiraahday. Marka gabadhii waxay ku tiri islaantii, hooyaday way ku fahantay, carar. Markaas ayay naagtii orod isku taabatay, iyadoo ka baqaysa dhagdheer. Markaas ayay gabadhii sii carartay.